وسلامتين دمانتينا مركو ورئيسة بروفيسورك والسلامية مرت شرفته بروفيسورك وحان ومحد علينا يا سدا شرفت له وناقله ودن النمذ كجرته ووسو أبابو لي برنامج كان أصيغون وقدن لهن دن قارا عن كلهن وان كارغنا يعني سدو نوغو معنيه إيو إن هيكسيغا 2016 ميشان نتيك سنين وكم هسته بروفيسوري سؤال شيء هذا ونسو قد بو وحد كده واجي سي 2016 سدايا لغو قاري كرا محا حلعة وحي عن سو مرني إن عندي بقى هذا النماء سدان كفهمي لابا غضب أيات سو جديسي غضب كوغو هوري وحاوي وحادري إن لو كرديو حل دبانا هذا هاد الجيران oo muddada u harsan loo kordhiyo 4 sano kale si ayagana ay u soo doortaan madaxweyne xildhibaanada hadda jira waa su'aashu waxay ka imaanaysaa kuwa hadda jira Soomaali ahaan kuwii hadda soo doortay madaxweyne Xasan Sheekh Soomaali ahaan kuwii rashuud iyo musuqmaasuq soo galay Soomaali ahaan kuwii mooshinada badan keenay miyaanay ahaan hadhow كي العقبة أي دورنا يعني وسؤال كويس سؤال اللي بعد واحد تري إن لهلا أدفوكيت وقدودا شعبك صدق عرورت اللي قدودا الصومال وانونا هاي الصومالية إن أنا صرت قلة إن انتاس صوته أنا اسمه معمولنا هدان اسمه معمولي كرنو ما بسوا قارين 2016 وحكوا قاري لهن one man one vote يا أقول مركو ورئيس أنا والشعب إن أنتجوا أم الباب كاس أنك جدبو هدانا اللي أقولين ودن كان حكومة أو كم إذا حلنا إن أنتجي كره حتى سألي أقولان كره إن كسماي عن أحفاديستو أو عن ورقة قرطو عن عد كي جيتسده أم الشعب كان مش فديه غير كم إذا أي أتجانو أي هذا أنا وحنا قلنا هاي إن مثلنا الشعب كيني si arinta aan uga hadalno taas ay suurto gali kartaa professor runtii laba su'aal oo aad muhiim u hayad sheegtay in loo kordhiyo xildhibaanada maanta jira waxaan eri waa laba daran mid dooro waxayna ku timid anigoo walwal ka qaba intaad adigu hadda aad ka dhawaajisay dabcan dadku waxay isweydiiyaan هجان صح دل قرمو يشا هجان صح دل وحو يشا مركو شعب كيسو صح ربو وناقة ربو او leadership is a product of society او society هدي وياهي مد corruption قادنين مد مارتي مسوماسو قديدة مد مارتي حلاشة قوتا مد مارتي وناقة اسفرة يعني هجان كسوبة حاين وحو نقونا مد مارتي قابكاس كو شقينا مركا طبعا هدي اللي يراهدو برلمانك هل هذه كوكلو كدوان كل يوم حيمان دونا شخصيات لم يدا ددك هذا برلمانك جوجا oo inta walwal aad qabto in la mid ah ayaa jiri doonta marka sababta aan u iri hala siis loo kordhiyo iyaga waxay tahay iyadoo waqtiga uu kooban yahay khilaafad badan ay jiraan soo xiritaanka xildhibaano badan u baahan doono muddo iyo dhaqaale iyo adduun badan u baahan doono dadka imaan doonana ay noqon doonaan kuwa in dhibaatooyinka jira oo si socodsiyo oo aan ahayn dad kale meel kale ka yimaada oo dalku wuxuu soo maray 25 sano oo dhibaato ah madaxda dalka anigu aan magac sheegin ayaa la weydiiyay leeyahay why dalka uu ugu jira corruption waxaan sugaynay su'aal jawaab maaragtay keeni kara dadku inay dareemaan Soomaaliya in lagu tilmaamo dawladda ugu corruption badan adduunka oo international organizations ay leeyihiin waa the lowest yani country markay timaado corruption hogaanka arrinta ka hadlay wuxuu yiri anaga shuruuc ma lihin oo corruption ka celiya shuruuc ma lihin oo sharciga in war shuruucda ilaahay subxaanahu wa ta'aala dajiyaa jira oo xaqa ibaadilka kala saaray oo shuruucdii nidaamka islaamiga iyo nidaamka humanitarianka jira oo xaqa ninka masaakiinka iyo dadka dhibaataysan in la bixiyo shuruucda waxaa jira in keeni karo war dadka dhibaataysan xaq bay ku leeyihiin dalka keeni kara jira